maantay oo ay taariikhdu ku beegan tahay 10ka bisha December 2017 waxaan halkan maanta waxaan ku qaban la isugu yimi oo aan ku qabanay ka guddi doorasho ahaan workshop soconaya maanta oo bishu ay 10 tahay ilaa 13ka kulankaas ama kulamada dhowrka bariya oo ah kuwa lagu falaaqeynayo ama laga doodayo strategic plan-kii guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ah ee Puntland uu yeelan lahaa muddo 3 sano ah ee soo socota runtii arinta waxaa guddiga ka caawinayay oo gacanta ku haya khuburo meelo badan ka kala timi sida Saferwall iyo la taliyaasha sharciga iyo arrimaha farsamada ee guddiga iyo waliba xubno kamid ah commissionerska strategic plan-ku runtii waa dugnimid culus oo loo baahan yahay in la qoro oo la diyaariyo oo si ma garanaysa uu noqdo strategic plan-ku dugnimidkii uu guddigan ku shaqeyn lahaa sanadaha soo socda haddaba waxaan doonayaa maantay sida aad la socotaan ama haddaba u jeedaan waxa weeye halkan shirka socda oo ka kooban dad ku dhow 30 qof oo khuburo ah oo laga soo ka kala yimi qaybaha kala gedisan ee bulshada sida bulshada rayidka hay'adaha cilmi baarista iyo khuburo kaleete oo la rabo inay input geliyaan strategic plan-ka guddiga loo diyaarinayo oo hadda gacanta lagu hayo oo meel fiican maraya runtii shirku maanta wuxuu u socdaa si wanaagsan oo habsami leh wuxuu noo bilowday 8:00 subaxnimo maanta oo dhan waa la shaqeynayaa ilaa 4 galabnimo haddii Allah awood uu ogolaado 3 cisho ee soo socotana saas oo kale loo shaqeyn doonaa waxaan rabaa inaan u mahad celiyo runtii ugu horeyn guddiga oo ugu horeeyaan guddoomiyaha iyo guddoomiye ku-xigeenka iyo commissionerska kale iyo khuburada gacanta ku haysa diyaarinta strategic plan-ka guddiga doorashooyinka ku meel gaarka ee Puntland uu yeelanayo guddigu runtii waxa uu hayaa shaqo aad iyo aad u baaxad weyn oo ummadda reer Puntland ay u igmatay oo dastuurka Puntland uu qeexay shaqada guddigu hayana waa shaqo ummadda reer Puntland u hayo waa shaqo uu doonayo dalkan iyo dadkan inuu ku gaarsiiyo doorasho hal qof iyo hal cod ah oo si xaq iyo xalaal Puntland uga dhacdo oo ay ugu horeyso tan golayaasha deegaanka haddii Allah awood leh uu ogolaado mar kale saaxiibkay Cabsi Khayr waa ku mahad celinaya adigana runtii shaqo aad iyo aad culus baad u haysaa guddiga doorashooyinka xafiiska miidiyaha ee guddiga doorashooyinka Puntland oo ah xafiis aad iyo aad u shaqeynaya shaqada aad ka hayso xafiiskana aad iyo aad baan kugu mahad celinayaa khuburo markale waxaan salaamayaa khuburada gacanta ku haysa strategic plan-ka iyo guddiga doorashooyinka iyo ka soo qaybgalayaasha kulankan hadda socda aad iyo aad baad u mahadsantihiin